waxyaalaha fadliga badan waxa kamid oo bishan la doonayo tobankan dambe in lagu dadaalo ducada kamida qiyaamul leylkii salaadii la tukanayay istighfaartii dhikrigii quraanka akhriskiisii waxa dheer ducada in la badsado maxaa yeelay ducadu si ahaanteedaba cibaadaadka ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu muhiimsan bay kamid tahay ilaahay wuxuu jecel yahay adoonkiisu inuu gacmaha u taagto alla wuxuu jecel yahay adoonkiisu inuu bariyo alla wuxuu jecel yahay adoonkiisu inuu baahida u soo gudbisto alla wuxuu jecel yahay adoonkiisu inuu subihim bihiyo alla waa ku jeclaadaa saastaradeed baa nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam bariyadu iyada umba cibaada hadaad cibaada maqasho ilaahay kugu adoonsade waa bariyada iyo tuugida ilaahay la tuuga waa allah tuugo bari oo imisa xaaje ku taala imisa baahi ku taala imisa mid caama taala imisa mid khaasa taala imisa waxbaad u baahantahay rabbi kaala jiro rabbi agtiisa yaala allah bari tabaaraka wa taala ummul mu'miniin aisha radiyallahu taala anhuma ba waxay tiri rasuulka ilaahayow ka waran hadaan laylatul qadri waafaqo laylatul qadri hadaan waafaqo oon helo oo ilaahay i waafajiyo maxaan dhahaa nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa tiraahdaa اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله وحاتها مد عفين بدن أدومدي سامحا عفينا واتعشا إن أدومدا سامحدو الله اسكك يعفي إله يسامح إله إيدم يداف بدي بو نبي صلى الله عليه وسلم دعاء ذاك دعايس مركز دعاء مهم